Black Panther wuxuu dhab ahaan ugu geeriyooday xanuunka kansarka. taageerayaasha Marvel waxay u haysteen in Wakanda aysan boqor dambe yeelan doonin geeridii Black Panther kadib, laakiin aragtidaas waa mid khaldan. geerida jilaaga waa mid xanuun badan, laakiin filimka ma istaagi karo geerida T'Challa. Marvel wuxuu sii waday Black Panther waxaana awoodiisa dhaxashay walaashii Shuri. sheekadu waxay ka bilaabmaysaa quusiyaal ku guda jira baaritaan badda hoosteeda ah, markaas oo ay si lama filaan ah u soo baxaan muuqaalo qarsoodi ah. markii ay si fiican u eegeen waxay noqotay jellyfish jini u eg. markii uu soo jeestay wuxuu ogaaday in saaxiibkiisii ag taagnaa uu meel dhow ka lumay, isagoon helin fursad uu ku wargeliyo xarunta. isna waxaa weeraray makhluuq aan la aqoon, wuxuuna gebi ahaanba lumiyey xiriirkii xarunta. isla markaana dhowr madax oo qarsoodi ah ayaa ka soo muuqday dusha badda iyagoo soo daynaya mawjado dhawaaq ah oo la yaab leh. dadkii saarnaa markabka ayaa bilaabay inay badda isku tuuraan ayagoo miyir daboolan. keliyihii markabka oo dareemay khatarta ayaa si degdeg ah u xirtay dhago-xir si uu markabka uga baxsado, balse markii uu gaaray sagxadda markabka waxaa weeraray 3 qof oo buluug ah oo wata waran dheer. keliyuhu wuxuu bilaabay inuu xabad ku rido, laakiin rasaastu waxba kama ay tarinin jirkooda. wuxuu u cararay dhanka meesha diyaaraduhu ku soo degaan. markii uu fuulay helikobterka waxaa hoos u soo jiiday mid ka mid ah makhluuqaadkii. kadib markii rasaas banyeer lagu riday makhluuqaadkii helikobterka ayaa u suurta gashay inuu kaco. in yar kadib helikobterka ayaa haddana la weeraray, waxaana la arkay qof qarsoodi ah oo dabada qabtay diyaaradda isagoo wareejiyey kadibna badda ku tuuray. keliyihii halkaas ayuu ku geeriyooday. hooska ka muuqdayna wuxuu ahaa qof cagaha ku leh baalan. kadib dhacdadaas dowladda Mareykanka waxay u malaysay in weerarkaas ay fulisay Wakanda sababtoo ah marka laga reebo Mareykanka Wakanda oo keliya ayaa leh awooddaas. laakiin waqtigaas Wakanda kuma jirin xaalad ay waxaan ku samayso, waayo waxay hadda dhameeyeen aaska Black Panther. isla markiiba xarunta adeega Wakanda waxaa weeraray calooshood u shaqaystayaal. waxaa cad in wadamadu ay ka faa'iidaysanayaan tabarta Wakanda si ay u xadaan vibraniumka. Black Panther wuxuu markii hore la wadaagay adduunka farsamada Wakanda isagoo niyad wanaagsan muujinaya, laakiin hadda wadamadu waxay ku cadaadinayaan inay wadaagaan khayraadka vibraniumka. boqoradda Wakanda waxay tiri ma aysan lumin awoodii ay ku difaaci lahayd khayraadkeeda. dibadda Wakanda meeshii aad ka heshaan vibranium raadsada, laakiin haddii aad damacdaan vibraniumka Wakanda waxaad la kulmi doontaan jawaab aad u adag. iyagoo raadinaya hab kale waxay sameeyeen radar lagu ogaado vibraniumka. markii ay guul ka gaareen badda Atlantic waxaa weeraray makhluuqaadkii qarsoonaa ee bilowgii filimka lagu arkay, waana sababtaas dhan loogu tuhmay dadka Wakanda. subaxnimadii dambe markabkii boqoradda ayaa ku soo laabtay Wakanda. habeenkii hooyada iyo gabadheeda ayaa ku sheekaysanayay webiga dhinaciisa. maadaama Killmonger uu gubay geedkii Heerchebet Herb, Black Pantherna uu geeriyooday, iyadoo labadoodu ka fekerayaan sidii ay usii hagi lahaayeen dadka Wakanda waxaa si lama filaan ah usoo muuqday qof aan la casuumin. isagoo isticmaalaya baalasha cagaha ku yaala ninkii wuxuu yimid hortooda. isagu waa Namor, boqorka boqortooyada badda hoosteeda ee Talokan. isna wuxuu leeyahay vibranium. ciidankii badda ee markii hore la laayay isagaa ka dambeeyey. Namor wuxuu dalbaday in Wakanda ay soo qabato saynisyahankii ikhtiraacay qalabka lagu ogaado vibraniumka. maadaama Black Panther uu adduunka usoo bandhigay awoodda vibraniumka, Wakanda ayaa mas-uulka ah. haddii kale wuxuu ku weerari doonaa ciidan weyn. markii uu hadalkii dhameeyey Namor wuxuu kaga tegay qalab isgaarsiineed. boqoradiina markay soo jeesatay waxay aragtay qalabkii lagu ogaanayay vibraniumka oo horteeda yaala. maadaama ay la kulmeen boqortooyo aan la aqoon oo iyaduna leh vibranium, boqoradda waxay go'aansatay inay arrinta dhab u qaadato. kadib markii ay wada hadleen, boqoradda waxay u dirtay General Okoye inay soo raadiso saynisyahankii qalabka sameeyey. Okoye waxay si qarsoodi ah u kaxaysatay Shuri, waxayna wakiilka Ross ka weydiiyeen halka uu joogo saynisyahanku. waxay la yaabeen markay ogaadeen in saynisyahanku yahay ardayad lagu magacaabo Riri. kadib hanjabaad iyo laaluush, Riri waxay ogolaatay inay raacdo, waxayna aadeen shaybaarkeeda si ay alaabta usoo urursadaan. Shuri waxay ogaaday in Riri ay dhisayso dhar bir ah Iron Man suit. isla waqtigaas ciidanka Mareykanka ayaa hareereeyay dhismihii. si ay u baxsadaan waxay u qaybsameen 3 dhinac. Shuri iyo Okoye waxay ku baxsadeen baabuur, halka Riri ay xiratay dharkii birta ahaa ee ay dhisaysay oo ay hawada u kacday. Shuri waxay ku guulaysatay inay ka baxsato ciidankii eryanayay iyadoo isticmaalaysa xirfadeeda baabuur wadista. Okoye dhankeedana kama liudan waxay isticmaashay warankeeda si ay u rogto baabuurtii eryanaysa. Riri si ay u goyso xiriirka ciidanka waxay soo riday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hawada ku jiray. inkastoo ay hawadu ku yaraatay markaas ayay miyir daboolantay oo ay hoos u soo dhacday. nasiib wanaag waxay miyirsatay ka hor intaanay biyaha ku dhicin. saddexdoodii waxay ku guulaysteen inay ka baxsadaan ciidanka, laakiin Riri ayaa si lama filaan ah xadhig loogu qabtay oo dhulka lagu riday. Shuri iyo Okoyena waxaa lagu qarxiyey bam qarsoodi ah. Okoye oo ugu horreyntii miyirsatay ayaa isku dayday inay caawiso labadii kale, laakiin isla markiiba waxaa badda ka soo booday Nibiri Wahale, waxaana yimid Namor iyo raggiisii. Okoye waxay gashay xaalad dagaal iyadoo isticmaalaysa khibradeeda dagaal. waxay si fudud u garaacday raggiisii xitaa iyadoo 3 qof isku mar la dagaalamaysa. laakiin dadkani ma dhimanayeen, wayna soo noolaadeen. markii hogaamiyahoodu uu isku dayay inuu dilo Riri, Okoye ayaa ka hor istaagtay, waxaana dhex maray dagaal weyn. laakiin hogaamiyahayan xooggiisu ma ahayn mid yar. dhowr wareeg kadib wuxuu ka adkaaday Okoye oo dhulka ayuu ku riday. markii caawimaad u timid waxay Okoye ku tuureen bam biyo ah. inkasta oo ay iska difaacday, haddana biyaha ayay ku dhacday. faraxaas wuxuu toosiyey Shuri. waxay is hortaagtay ninkii rabay inuu dilo Riri, waxayna u sheegtay inay tahay gabadha boqorka ee Wakanda, waxayna ka codsatay inay iyada iyo Riri geeyaan Atlantis si ay ula kulmaan Namor. Okoye oo weysay gabadhii boqorka iyo Riri ayaa keligeed ku laabatay Wakanda. boqoradda ayaa aad u carootay, waxayna u haysatay in Okoye ay Shuri geysay khatarta, sidaas darteed waxay ka xayuubisay xilkii generalnimo. boqoradda waxay tagtay shaybaarkii Shuri, waxayna isku dayday inay wacdo gabadheeda, laakiin waxaa ka jawaabay wakiilka Ross. weerarkan waxaa ka dambeeyey waxay u muuqatay in Shuri ay si ula kac ah qalabkeeda isgaarsiinta dhulka ugu tuurtay si loo helo, laakiin Ross ma haynin wax calaamad ah oo cad marka laga reebo in calaamadii Shuri ay ku dhowdahay koonfurta badweynta Atlantic. haddaba Nakia oo ahayd saaxiibtii hore ee Black Panther ayaa noqotay rajada keliya ee hartay, maadaama ay tahay dagaalyahanada iyo
basaasida ugu xoogan Wakanda boqorada ayaa shakhsi ahaan ka codsatay inay soo raadiso Shuri. Nakia oo leh xiriir banyak waxay tagtay tuulo fog oo ku taal Mexico oo u dhow meeshii calaamadu ku dhimatay. Waxay oday ka maqashay inuu hore u arkay dad maqaar buluug ah leh oo ka soo baxaya god. Nakia waxay xiratay koofiyadda quusitaanka waxayna u quustay dhanka godka iyadoo wadata markab yar oo biyaha hoostooda mara. Isla waqtigaas Shuri iyo Riri ayaa soo toos. Waxay la yaabeen in dadkii qabtay aysan ula dhaqmin si xun balse ay siiyeen miro macaan. Kadib Namor ayaa u yimid Shuri wuxuuna u sheegay taariikhda dalkiisa. Markii hore waxay ahaayeen bini'aadam caadi ah laakiin cudurka furuqa Smallpox ayaa dilay dadkiisii badnaa. Ilaa uu ka soo muuqday wadaad weyn oo badda hoosteeda ka helay geed ku yaal dhagax dushiis. Dhagaxaasna wuxuu ahaa Vibranium. Markii ay geedkii budo ka dhigeen oo ay dadkii cabeen furuqii waa laga bogooday laakiin jirka dadka ayaa noqday buluug waxayna heleen awood ay badda hoosteeda ku neefsadaan. Sidaas ayay ku aasaaseen boqortooyada Talokan iyagoo adduunka ka qarsoon. Laakiin hadda bini'aadamku waxay rabaan inay xadaan khayraadkooda Vibraniumka. Markaas Namor wuxuu go'aansaday inuu dagaal ku qaado dadka dhulka degan. Wuxuu weydiistay Wakanda inay caawiyaan wuxuuna Shuri siiyey silsilad hadiyad ah. Isla waqtigaas iyadoo Namor uu maqan yahay Nakia ayaa timid godkii ay ku xirnaayeen Shuri iyo Riri. Kadib markii ay dishay ilaaladii waxay la baxsatay labadii gabdhood. Markii uu Namor soo laabtay oo uu arkay ilaaladiisii oo dhimatay aad ayuu u carooday wuxuuna amar ku bixiyey in ciidanku isdiyaariyo si ay u weeraraan Wakanda. Bal eeg sida uu u xooggan yahay boqorka badda ee Marvel. Xitaa dagaalyahanka ugu xooggan Wakanda ma iska celin karo feedkiisa. Isagu kaliya maaha boqorka badda laakiin sidoo kale hawada ayuu ku leeyahay awood weyn. Markii ay diyaaradihii soo gurmadeen Namor si fudud ayuu uga dhuuntay rasaasta wax ka yar nus daqiiqo ayuuna ku burburiyey dhammaan diyaaradihii. Shuri ayaa iyaduna dagaalka ku soo biirtay. Namor wuxuu ku dhuuntay biyaha si uu uga fogaado weerarka kadibna wuxuu si xawli ah uga soo baxay biyaha isagoo ku soo booday diyaaradii Shuri kadibna wuxuu ku dhuftay dharbaaxo xooggan oo diyaaradii biyaha hoostooda u dirtay. Markii uu dagaalkii dhameeyey Namor wuxuu u duulay boqorada horteeda wuxuuna riday bam biyo ah. Maadaama sagxadii ay jabtay biyaha ayaa qaaday labadii dumar ah. Boqorada si ay u badbaadiso Riri waxay isticmaalay xoogeedii ugu dambeeyey. Markii uu Okoye soo galay boqorada mar hore ayay dhimatay. Namor wuxuu ku hanjabay in toddobaad kadib uu weerar dhab ah ku soo qaadi doono Wakanda. Shuri iyadoo hadda dirtay walaalkeed waxay aragtay hooyadeed oo ka geeriyootay. Si ay dalkeeda u difaacdo sida Black Panther Shuri waxay bilowday inay darsiso dhibka Namor. Namor wuxuu ku xoogan yahay biyaha haddii maqaarkiisu engego xoogiisu wuu dhimanaya. Sidaas darteed Shuri waxay amartay in diyaaradeeda loo bedelo qol uumiga soo saara waxayna Okoye u samaysay dhar cusub oo loogu magac daray Minute Angel. Si kastaba ha ahaatee si looga adkaado Namor waxay u baahnayd awoodda Black Panther. Shuri waxay isticmaalay silsiladii Namor si ay uga soo saarto hidasidaha geedkii Heart Shaped Herb waxayna isku dayday inay dib u abuurto geedkii. Riri intaas waxay ku guda jirtay dhamaystirka dharkeeda birta ah ee Vibraniumka laga sameeyey. Dadka Wakanda waxay u qaxeen buuraha barafka ah cabsi ay ka qabaan Namor darteed. Kadib dadaal badan Shuri waxay ku guuleysatay inay abuurto geedkii weyna cabtay. Markii ay awooddu jirkeeda gashay waxay gashay riyo halkaas oo ay ku aragtay in adeerkeed Killmonger halkii ay ka arki lahayd awowayaasheed. Waxay u muuqataa in Shuri ay u cabtay geedka si ay ugu aargudato hooyadeed. Fikirkaas aargoosiga ahna wuxuu la mid yahay kii Killmonger waana sababta ay isaga u aragtay. Markii ay Shuri soo toostay waxay heshay awooddii Black Panther. Waxay soo qaadatay koofiyadii Black Panther waxayna ka soo booday meel sare iyadoo dadka horteeda ku soo bandhigtay inay tahay Black Pantherka cusub. Shuri waxay noqotay boqorada cusub ee Wakanda waxayna dadka u sharaxday qorshaheeda dagaal. Subaxnimadii dambe ciidankii Wakanda ayaa is urursaday si ay u weeraraan Talokan. Dhanka kale Namor wuxuu maqlay in badda hoosteeda laga helay qalab isagoo u haysta inuu yahay qalab Vibraniumka raadinaya. Laakiin markii ay u dhawaadeen qalabkii wuxuu soo saaray mawjado dhawaaq ah oo aad u daran oo dhibay dadkii Talokan taas oo ku qastay inay biyaha dushooda u soo baxaan. Halkaasna waxaa ku sugayay markab weyn oo dagaal. Namor wuxuu isku dayay inuu markabka jabiyo laakiin hadda ma ahan isaga oo kaliya qofka duulay. Riri ayaa ku soo baxday dharkeeda cusub ee Ironheart. Namor ma uusan quudsan wuxuuna ku tuuray baabuur. Dagaalkii ayaa weynaaday askartii Talokan iyo kuwii Wakanda ayaana isku galay. Shuri waxay isticmaalaysay awoodeeda si ay cadowga dib ugu celiso. Namor iyo Riri waxay ku dagaalamayeen hawada. Kadib markii la casriyey dharka Riri waxay u suurta gashay inay Namor hawada ka soo rido iyadoo ka dhex saartay daruura. Shuri waxay Namor ku xirtay diyaarad uumi kulul soo daynaysa. Maqaarkiisa wuxuu bilaabay inuu engego qorshihiina wuxuu u muuqday mid guuleystay. Baku wuxuu amray in dib loo gurto laakiin matoorkii markabka ayaa la qarxiyey. Caawimaadii Talokan ayaana timid. Qaraxyo badan ayaa dhacay. Askar badan oo Wakanda ahna badda ayay ku dhaceen. Markii xaaladdu xumaatay Shuri waxay amartay Okoye inay soo gurmato. Dharkeeda cusub ayaa ka caawiyey inay si fudud ku dhex gasho biyaha iyo hawada. Diyaaradii waday Namor waxay u duushay dhanka saxaraha si looga fogeeyo biyaha. Namor wuxuu isku dayay inuu baxsado Shuri ayaana gudaha u gashay si ay ula dagaalanto. Inkasta oo kuleyl ku jiray Namor weli wuxuu ahaa mid xooggan. Shuri waxay qarxisay diyaaradii si ay u waxyeesayso Namor waxayna labadooduba ku dhaceen dhulka. Namor wuxuu bilaabay inuu Shuri feer la dhaco laakiin Shuri waxay u suurta gashay inay ka goyso mid ka mid ah baalasha cagaha. Tani waxay aad u caraysay Namor wuxuuna waran ku dhuftay Shuri isagoo darbiga ku xiray. Laakiin dharka Black Panther ayaa nuugay awooddii Shurina waxay dib ugu soo celisay Namor awoodaas oo xoog leh. Maadaama uu Namor biyo beelay xooggiisii ayaa dhimaaday. Shuri waxay isku dayday inay disho laakiin Namor ayaa si qarsoodi ah u dhaawacay. Ugu dambeyntii Shuri waxay qarxisay matoorkii diyaaradda si ay u gubto Namor. Shuri waxay kor u qaaday warankii si ay u disho Namor laakiin waxay xasuusatay hooyadeed iyo nabad ku wada noolaanshaha labada dal. Waxay u soo bandhigtay Namor inuu isdhiibo si ay labada dal xulafo u noqdaan Wakandana ay u ilaaliso sirta Talokan. Namor wuxuu aqbalay dalabkii dagaalkiina halkaas ayuu ku dhamaaday.